kooxo baskoolada ku hubeysan ayaa xaafad ka tirsan degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir waxa ay ku dileen wasiirkii hore ee beeraha iyo waraabka maamulka Hirshabelle marxuum Xasan Axmed Mudey. wasiirka ayaa la sheegay in la dilay xilli uu ka soo baxay masaajid uu salaada casr ku dukaday, waxaana dilka wasiirka fuliyay dhalinyaro baskoolada ku hubeysnaa kuwa oo dilka kadib goobta si degdeg ah uga baxsaday. madaxweynaha dowladda Hirshabelle Mudane Cali Cabdullaahi Xuseen loo garan ogyahay Cali Guudlaabe ayaa si kulal u cambaariyay dilka loo geystay wasiirkii hore ee beeraha iyo waraabka ee dowlad goboleedka Hirshabelle, waxa uuna madaxweynaha tacsi u diray eheladii uu ka geeriyooday wasiirka la dilay. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan tacsi u diraynaa qoyska qaraabada iyo bulshada reer Hirshabelle ee uu ka geeriyooday. Allah u naxariistay marxuum Xasan Axmed Mudey. marxuumka waxa uu ahaa shaqsi karti badan oo muddo u soo adeegayay Hirshabelle, waxa uuna door ku lahaa aasaaska dowlad dhiska Hirshabelle ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay madaxweyne Guudlaabe. dilka wasiirkan oo horey uga tirsanaa maamulka Hirshabelle loogu geystay magaalada Muqdisho aan iraahday ayaa imaanaya xilli muddooyinkii dambe uu soo hagaagayay ammaanka caasimadda magaalada Muqdisho oo lagu wareejiyay ciidamo cusub oo booliska militara ka tirsan.